إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله تعالى maanta oo ay ku beegan tahay bisha Shacbaan 17 bisha Shacbaan 1442 waxaan bilaabaynaa risaalo yar oo la yiraahdo al-fiqhu al-muyassaru fi ahkaami as-siyaami waa kitaab ama waa risaalo yar oo ay ku magacaaban tahay fiqhigii la fududeeyay ee ku saabsanaa ahkaamta soonka waxyaabaha soonka xugunadiisii uu waajibayo sunno u ah loo kahday mustaxabaad u ah mubtilaad u ah aynu kaga hadlaynaa insha Allah taala waxaa qoray risaaladan nukhbatun min al-ulama koox culimo ayaa diyaariday al-muqaddimatu hordhici al-muqaddamatuna waa la akhriyaa alxamdulillahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد مهد لله الله بأسقناتي رب العالمين عالمين تربي قد عالمين وما سوى الله انتان اللهين أيا لغير هذا عالمين تو والصلاة أمان حريس والسلام نبتقليو على رسول الله رسولك إلهي كركي سيئهاتي صلى الله عليه وسلم أما بعد انت كبعدي فهذه رسالة تنوى رسالة لطيفة قرح بدن وفي أحكام الصوم صونك حقنديسي كسابسا أحكام الصونك أي كسابسا تهي لا يستغني أن كمر مينين عنها رسالة الصائم متك الصوما أن كمر مينين وستكون حين نقندونتا كافية متك في الناتا وشافية مد شافضة أما دويدة لمن ألقى السمع قفكي مقال كسيداية أو دقرارعية وهو شهيد هدنا قوب جوق ودروس تبلو إلى دمار للصعدة يعني وحويا إلهي سبحانه وتعالى في سورة قاف حكويري إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد quraanku waxa ku sugan waano ama aayadaha quraanka waxa ku sugan waano nin alla ninkii maqalka raariciya dhageysta oo waxa weeyaan shahiidna ah marka inta badan waxa waxbarashada ku guuleysto ardayga waxa weeyaan qalbi leh oo raqba jeclaan iyo shawqi iyo waxa weeyaan uu ku soo fariisanayo waxbarashada isagoo jecel haddana dhageysta macalinkiisa aanu kaga mashquulaynin meel kale oo aan ahayn الجسم حاضر والقلب غائب شركي حاضر قلبك ومقنيهي قف كان سدا أهين أياكو قوليسته أو حاضر أمر والب حاضر الذهني مانكي سوء حاضر يهي وهو الشهيد هدنا وحويان قوب جوج أو دقيسته معلنك قوب جوجنا وعنو كم مقنانين 10 كبلو إلى دمات ونسأل الله عز وجل الله ويدي سنينا أن ينفع بها إنه كو أنفع رسالة المسلمين مسلمين تورن والله الله بانا أعلم وقال بدن أو علم بدن فصل وحو فسليه في معنى الصوم صون كمعنيه سا إيه وحكمه إيه حكم كيسا صون محل هذا معناه شرعا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية الصوم soonka macnihiisu xagga sharciga waxa la yiraahdaa al-imsaaku waa qofka inuu ka tago uu ka afhaysto عن الأكل والشرب cunida iyo cabitaanka wax cunida iyo wax cabida inuu ka tago iyo wasaa'ir al-mufattiraat iyo waxyaabaha wax afuriya ama soonka buriya oo dhan min duluuci al-fajr as-saadiq fajr as-saadiq laga bilaabo markuu dhasho waa fajrka runlowga ah waa fajrka salaada waxa weeyaan ay ku galayso ama salaada subax ay ku dhalanayso laga bilaabo ilaa ghuruub ash-shamsi ilaa qoraxda ay ka dhacdo inuu qofku ka tago cunida iyo cabida
iyo wax alla wixii soonka buriya ayaa la doonayaa. biniyati sawmi niyad soonna waxa weyn uga tago hadduu isaga tago laakiin aan niyad soona uga tagin uusan soon ku seexan habeenkii waxa weeyaan soon lama yidhaahdo kaas. xukmu sawmi ramadaana ramadaanka in la soomo xukunkiisu huwa axadu arkaani alislaam islaamka tiirarkiisa mid ka mid ah weeye iyo wamabaaniihi waxyaabaha islaamka uu ku dhisan yahay alcidaam ee waaweyn waa shanta tiir ee islaamka ayuu ka mid yahay waa sawmu ramadaan wahuwa fardun min faraa'id illaah waa waajib ka mid ah waajibaadka allah subxaanahu watacaala uu ku waajibiyey addoommadiis in ay soomaan. ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة ووجوبه واجب نمديسنا معلوم وشيء لا يقان وهي من الدين كمدة بالضرورة ضرورنا لو نسبيي وشيء ضرورة ويان وعلى مرمان قف كستو مسلم إنه صوم أي تهي وأنا واجب ويان قف عن قرنين مجر صون ومسلم إنه صون شرو فمن جحد قفك ديدا فرضيته waajibnimadiisii qofkii diida oo yidhaahda soon ma jiro waajib ma aha fahuwa kaafirun kaa gaal weeye ilaa an yakuuna inuu yahay mooye xadiida cahdin bilislaami mid waqtigiisii islaamka ku cusub oo hadda dhow soo islaamay oo aan kala garanaynin arkaantii iyo wixii oo dhan aw mise nasha'a ku barbaaray fii baadiyatin meel baadiye ah baciidatin ka fog can ilculamaa'i culummada kaa waxa weeyaan asagu la gaalaysiin maayo ilaa waxa weeyaan uu ka ogaado. amaa man afdara fii ramadaana laakiin qofkii ramadaan dhexdii afuraa aan soomin ligayri cudrin sharciyin cudurdaar sharcigana uusan haysan oo musaafir ma aha gabadhii xaydka ku dhacay ma aha tii nifaaska qabtay ma aha min qof jiran ma aha wahuwa yactaqidu wujuubahu calayhi wuxuuna rumaysan yahay inuu waajib yahay soonku waa igu waajibay ayuu leeyahay mana soomayo falaa yukfaru la gaalaysiin maayo kaas bal yakuunu caasiyan baan leenahay waa caasi lilaahi allah buu ku caasiyey wa calayhi waxaana laga rabaa qadaa'u alayaami maalmihii inuu soo qalleeyo allatii afdara fiiha uu afuray waa qof muslim tukanaya laakiin wuxuu diiday soonkii ayuu waxa weeyaan ma diidinaya soonku uu ictiqaadsan yahay laakiin ma uusan soomin imaa takaasul shaydaan baa ka qaalib noqday ama wuu wahsanayaa marka waxa weeyaan kaa waxaan leenahay muslim weeyaan oo caasi aan leenahay waa mid ilaahay ku caasiyey soon baa la leeyahay maalmaha uu ka tegayna inuu soo qalleeyo ayaa laga rabaa. tanbiih baraarujin wakaanat fardiyatu ramadaana ramadaan waxaa la waajib yeelay yowma alithnaini maalin isniin lileylatayni khalataa laba habeenna ay ka tagtay min shacbaana bisha shacbaan oo laba maraysa ayaa la waajibiyey maxaan ku raahdaa ramadaan maalin isniinayna ahayd min asanati athaaniya lilhijra sanadkii labaad ee hijriyada nebigu sal ly slam markuu madiine u hijrooday sanadkii labaad ayaa la farad yeelay oo bisha shacbaan laba ay marayso. faslun fii fadaa'ili shahri ramadaana wuxuu u fasal yahay bisha ramadaan fadligeedii. min fadaa'ili shahri ramadaan bisha ramadaan fadligeedii waxaa ka mid ah wa khasaa'isihi iyo waxyaabaha ay la gaar tahay allatii laysat fii gayrihi oo aan bilaha kale lahayn maa yeli inta soo socota. kow inzaalu lqur'aani qur'aanka dejintiisii fii ramadaana ramadaan dhexdiisii la dejiyey. bisha ramadaan waxaa fadli ugu filan waa bishii qur'aanka la soo dejiyey. qur'aankuse inuu la wada soconno laba jeer buu soo degay marna waxa weeyaan munajim isagoo duuduub ayaa la soo dejiyey inta samada laga keenay dhulka la keenay ka bacdi waxaa lagu bilaabay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam in lagu soo dejiyo qur'aanka aayad iyo suurad in loogu soo dejiyo isagoo mufasal ka weeyaan. marka inzaal qur'aani qur'aankii baa degay oo la soo dejiyey fii ramadaanka dhexdiisa. wujuubu siyaami soom baa waajibiyey fii ramadaanka dhexdiisii in la soomo ayaa waajib noqotay mar haddii 11 bilood aysan waajib ahayn ee kale in la soomo ramadaan keliya waxa weeyaan la soomayo saasaaba ugu filan fadli iyo khasaa'is. fiihi tuftaxu bisha ramadaan baa la furayaa abwaabu ljannati jannada albaabadaheedii waa bil naxariis waa bil dembi dhaaf
وبال إلهي أدومدي سورة كيهي ويان. فيه تغلق وحال حرا بشا دحديدا أبواب النار نار الباب هذا iyaduna waxa weeyaan caradii ilaahay subxaanahu watacaala khalqigiisii ayaa waxa weeyaan yaraanayso oo waxa weeyaan dembi dhaafkii allah baa la helayaa weeyaan. fiihi bisha dhexdeeda tusfadu waxaa la silsiladeeyaa ashayaadiinu shayaadiinta waaweyn ee umarada ah, madaxda ah iyo maradada, kuwa madaxa adag ee dadka dhibaya ee u sababaya kabaa'irta inay ku dhacaan, gaalnimada ku dhacaan dadku u sababaya dhan waa la xirxirayaa. kuwa yaryar oo fudfudud oo muuminku asagu waxa weeyaan aysan ka adkayn, kuwa baa waxa weeyaan la soo deynayaa uu muuminku iska celin karo. fiihi laylatul qadri bisha ramadaan waxaa ku sugan habeenka la yiraahdo laylatul qadarka. waa habeen laga helayo tobanka dambe ee bisha ramadaan. waa habeen jaangooyn ah oo wax la qadarayo. waa habeen sharafeed weeyaan. wahiya khayrun waxay ka khayr badan tahay min 1000 shahrin kun bilood. waa 83 sano iyo 4 bilood cibaadadeedii weeyaan intaad samayn lahayd. waxa weeyaan waa bilaha kale ah bisha ramadaan halka habeen duu ilaahay ku waafajiyo cibaado aad ku waafaqdo oo ka aqbalo allah waxa weeyaan ayaa ka khayr badan. xusuulul maghfirati dhaafid ayaa la helayaa oo dembi dhaaf baa la helayaa liman saamahu qofkii sooma bisha iimaanan alla rumayn dartii u sooma waxtisaaban iyo ajar xisaabsasho. marka waa bil dembi dhaaf weeyaan. xusuulul maghfirati dhaafid ayaa la helayaa oo dembi dhaaf baa la helayaa liman qaamahu qofkii istaaga bisha iimaanan alla rumayn dartii u istaaga iyo waxtisaaban iyo ajar xisaabsasho. man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث كلام وحوها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كثرة العتقاء انت الحرين يا ربنا او من النار نار تلقى حرين في رمضان كدحديسا. انت رمضان نار تلقى حرين إلهي ونار تيسك حرين يا آد تربنا بشا ساسا فضل وغفلا. لكل مسلم قف كستو مسلم في كل يوم من رمضان مالين كستو رمضان وحو ليهي دعوة برياء ليهي ومستجابة لغا أقبليو. مالين كستو رمضان جانس بعد هي ستا قف كستو مسلم كفا إذي سوء ولغا أقبليو وحال واحد إلهي سبحانه وتعالى أتكبرسو. marka intii aad ilaahay barin lahayd haddii aad waxa weeyaan aad kaga mashquusho waxyaabo kale adduunyo waa ayaan daro weeye. marka maalin walba waxaad leedahay duco laga aqbalayo ku dadaal ducada. faslun fi thubuuti shahri ramadaana wuxuu u fasal yahay fi thubuuti shahri ramadaana bisha ramadaan sugnaanshadeedii. bisha ramadaan maxay ku sugnaataa oo goormay soo gashaa bisha. yathbutu shahru ramadaan bisha ramadaan waxay ku sugnaanaysaa biaxadi amrayni laba arin midood. kow biru'yati lhilaali bishii baa la arkay. bishii baa la arkay 29 bay ku dhamaatay waa la arkay ama 30 weeyaan waa la arkay. taa waxa weeyaan arkidaas ayaa lagu soomaa. biikmaali ciddati shacbaana tirada shacbaan in la buuxiyo 30 yowman 30 maalmood oo habeenkii 29aad ama habeenkii 30aad bisha shacbaan ayaan la arkinba. bishii ramadaan may dhalan imaa waxa weeyaan waa la arki waayey ama daruur baa qariday. 30ka shacbaan baa la buuxinayaa markii 30ka la dhameeyana waa la soomaya. maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri suumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi. ku sooma aragtideedii kuna afura aragtideedii ku afura. haddii la idinka qariyana bisha shacbaan tiradeedii 30ka maalmood buuxiya ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam. marka labada tiir bay waxay leedahay labada shay bay ku sugnaanaysaa oo ah bisha in la arko. qasab ma aha in waxa weeyaan aad adiga aad aragto ama dadka adiga aad xulufatihiin ama kooxdaadii ay arkaan kaliya waxa weeyaan qasab ma aha. sidoo kale qasab ma aha in waxa weeyaan beledkaaga laga arko. haddii baldaamaha muslimiinta laga arko waad soomaysaa. haddii waxa weeyaan qof arko oo muslim ah oo caadil ah hal qof oo caadil ah arka waxa weeyaan yiraahdaa anaa arkay waa la soomayaa. sidii waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu nabigu ka aqbali jiray dadka muslimiinta ah qof ka mid ah hadduu yiraahdo bishii baan arkay waxa weeyaan waa la soomayaa. هذا آخر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.